waxaanu wanaagsan daawadayaasheeda sharafta qadarinta iyo xushmada naga mudanow meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada markale iyo waliba barnaamijkii beeraha oo daawadayaal toddobaadkiiba hal mar ka daawataan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijkan beeraha ayaa daawadayaal waxaynu kaga hadalnaa isla mar ahaantaana aanu idinku soo bandhignaa sidii aynu wax u beeran lahayn isla mar ahaantaana u kobcin lahayn wax soo saarka dalkeena si aynu uga marano waxyaabaha dibadda inooga imanaya barnaamijkeen iyo toddobaadkan daawadayaal waxaynu ku soo qaadan doonaa shinida ama basiirka iyo waliba wax soo saarka waxa barnaamijkan noogu martiya Cabdirasaaq Cabdilaahi oo ah agaasimaha waaxda wax soo saarka ee wasaaradda horumarinta beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu warbixin inaga siin doonaa shinidu waxa ay tahay noocyada kala duwan maanta waxaanu ka hadlaynaa shinida dalkeena ay beeralaydu wax ku beertaan shinidan waxa kale oo ka hadlaynaa shantii sanadood ee ugu dambeeyay heerka wax soo saarkeenu uu marayay statistically waxyaabaha inoo soo go'ay ayaynu ka hadli doonaa insha Allah haddii aan markaa ku horeeyo qodobka oranaya shinida dalkeenu waxa weeyaan marka shinni laga hadlayo shinidu waa aasaaska beeraha ee wax soo saarka marka haddii ay markaa shinidu wanaagsanaato waxa wanaagsanaada marka waxa weeyaan wax soo saarkii ayaa wanaagsanaada marka la helo markaas waxyaabihii saacidayay shinida haddii ay tahay laydhkii ama iftiinkii cadceedda haddii ay tahay biyihii haddii ay tahay heerkul ku habboon iyo shinidii markaa tayaloo la helo ayaa waxaa kordhinayaan markaasi wax soo saarka haddii aanu waqtiyadii hore aynu dalkeena dib ugu noqono shinidu waxay ahayd shinni tayo leh oo markaas beeralaydu ay kaydsadaan oo kayd u ah sidoo kale waxaa jiri jiray qaybta qaranka ee kaydka siirka ayaa jiri jiray siirkaas jiri jiray wuxuu ahaa mid tayadiisu ay aad iyo aad u fiican tahay markaas waxa ku dhacay markaas siirkii nooca ahaa dhalangadis fara badan markii la waayay beeralay siirkii kaydka haysata national storage ay markaa qaranku u lahaa isla markaasina la waayay dadkii sida maxalliga ah isku siin jiray hadday noqoto ama hadday noqoto maxay hayto isisiin hadday noqoto iska iibsi ay dhexdooda iska iibsadaan siirka tayada leh waxaas oo dhan baa meesha ka baxay taasi markaa waxay ina dhaxal siisay in markaa dalkeeni uu arintaas markii uu siirkii waayay ay ku kalifto inuu dalal shisheeye uu markaas u doonto siirkii ama abuurkii uu markaa u doonto dalal shisheeye oo qaarkood aynaan isku cimil ahayn oo qaarkood Yurub yihiin kuwaas oo markaa ay keenayaan kambaniyo ka ganacsanaya siirka ka ganacsanaya ama hay'ado ay keenayaan ama ay keenayaan maxay tahay shakhsiyaad gaar ah ay keenayaan arintaasi markaa waxay ku keentay dib badan ayay waxay ku keentay siirkii ama abuurkii bay ku keentay isla markaas waxa markaa dalkeeni arintaasi ay dhaxal siisay in uu noqdo dal ku tiirsan dalalkaas shisheeye tusaale markaa haddii aan soo qaadano khudaartii iyo markaa waxyaabihii siirka ay ka mid ahayd waxyaabihii cerealska la oran jiray ama frilayda la oran jiray sida haruurkii arabakhdii galeydii waxyaabahaas iyaga waxa weeyaan waxyaabaha dhalangadisku uu ku dhacay dhalangadiska waliba aan oran karo ugu yar uu ku dhacay weeyaan marka dhalangadiska waxa ugu badan uu ku dhacay waxa weeyaan khudaartii dhammaan way ka baxeen iyagu khadkii way ka baxeen amaba waa la waayay markaas waxa imika kaliya ah aynu sii haysanaa aan oran karno waxbaynu ka sii haysanaa waxa weeyaan haruurka noocyadiisa kala duwan sida masagacad masagacas cilmi jaamac faruurgeele
cilmi jaamac farangaago aadan gaab waxyaabahaas waxa weeyaan waxyaabaha ay nooga sii yaala markaasi dalagyadeena ama abuurkeeni wax laga heli karo marka xataa aan aynu wax ka sii yara haysano sidoo kale waxa iyaduna jirta galeyda digiraha ayaa jira markaas digirta markaas la yiraahdo digir dhagaxda la yiraahdo dahabalooso joogto aynal maxay tahay aynal qaasali la yiraahdo markaas digirahaas iyaguna wax way ka sii yaalaan iyaga laftooda sidoo kale waxa iyadu meesha ka baxday guud ahaanba firigeedii si rasmi ah oo meesha uga baxay waxa weeyaan bahashan la yiraahdo arabakhida la yiraahdo arabakhida markaas noocyo aynu markaa u lahayn rasmi ayaa jiray oo la yiraahdo lowso nichaar caday dabaka dhala waxyaabaha noocaas ah ayaa jiray sababta ay markaa uga baxday arabakhidaasi ay meesha uga baxdayna waxa weeyaan arabakhidu waxa weeyaan waxay leedahay qayb markaas dhadiga oo la yiraahdo biilo la yiraahdo iyo markaasi qayb laba oo biilo la yiraahdo iyo markaasi qaybta xasiidka oo dhadigiya markaa biiladu uu ka sareeyaa had iyo jaraale marka geedka ay ku yaalaan qaybta dhadiga uu ka sareeyaa kabacdi dabeedna qaybtii biiladiiba waxa ku soo daadanaysaa arabakhidii kale ee markaa baxday dabeedna waxa laga yaabaa in ay markaa kala duwan yihiin markaa cross breeding baa dhacaya adigu isku talaalmayaan dabeedna waxa ka soo baxaya waxaan markaa noocan loocii loo baahnaa ee rasmiga ahayn ayaa meesha ka soo baxaya oo markaa wax soo saarkiisuna uu aad u hooseeyo markaa taasi waxay sababtay in uu markaa meesha ka baxo arabakhidii ay meesha inta badan ay ka baxdo arintaas ayaa markaasi jirta oo ay waxyaabahaas jira markaa khudaartana wanaga soo sheegnay iyaduna inteedii badneed dabadda ay nooga wada timaadaan waxaanay noqonaysaa mid markeli ah baxda amaba F1 bay noqonayaan taasina dib weyn bay ku haysaa wax soo saarka waxaad ka warantay shiniyaha aynu haysanay ee baaqiga inoo sii ah ee ay ka mid yihiin waxyaabaha aynu awal aad ka u cuni jirnay hadday noqoto digirka maxaa la yiraahdaa haruurka dadkeenu iminka waxay aad u cunaan bariiska oo kale waxaa jiray bari dhexdaas in wasaaradda beeruhu ay ka hawgashay sidii bariiska dalka looga beeri lahaa oo shinideedii ay u keentay shinidii la beeray barigaasi wax maxsuul oo soo baxay oo bariiskii laga helay ma jiraayo dadka ay dib u isticmaalaan hadda waayahay waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan bariisku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aynu qudano ugu aynu maanta qutul daruurigeena ka koobaad isla markaasina boqolkiiba boqol inooga yimaado dalka dibadiisa markaas waxa jiray waqtiyo imika 2010 iyo 9 iyo 2000 akhirkii 2011 2011 akhirkiisii waxa jiray markaa mashruuc wasaaraddu ay waday oo bariiska ah mashruucaas waxa loogu talagalay meelaha in laga beero cimiladoodu ay kulushahay ayaa loogu talagalay in laga beero ay ka mid tahay markaa biyo guur ay ka mid tahay qabri baxar ay ka mid tahay meelahaas ayaa markaa loogu talagalay meelihiina waa lagu tijaabiyey waana lagu beeray waxa la tijaabiyey 11 nooc oo ka mid ah bariiska ayaa la tijaabiyey oo la doonayay bal inuu dalkeena ku haboon yahay iyo in kale 11 nooc nasiib wanaag waxa dalkeena ku soo baxay 9 nooc oo ka mid ah oo bariiska ah ayaa ku soo baxay oo si fiican oo ugu soo baxay markii uu soo baxay 9kii nooc waxay noqotay arrin markaa in siirkeedii abuurkeedii ay markaa wasaaraddu kaydiso 9kii nooc ay dhigto isla markaas ay beeraleydiina tababaro ku siiso arrintaas markii la sameeyay si fiican ayaa ay meelihii lagu tijaabiyey ay u noqdeen in ay noqdaan in ma garanaysaa ay soo saaraan meelaha qaarkood la cunayba waxyaabihii ka soo baxay oo aad sidaad ka aragteen madaxtooyadaba la keenay oo lagu cunay bariiskaas balse waxyaabaha waxa jiray carqalado uu leeyahay khaas u ah bariiska harameyn fara badan buu u baahan yahay
in joogtiin fara badan in lala joogo oo mar walba lala socdo u baahan yahay dadkeenana inta badan waxay jecel yihiin spoon feeding ama wax malqacad loogu quudiyo inta badan ayaa inta badan ay dadkeen jecel wax yar oo intay beertaan ay markiiba goostaan oo sida Asianka iyo dhib fara badan inagu inta badan ma gelino maadaama inta asalkeeni hore aynu xoolo dhaqato ahayn laakiin imika waxa filayaa in dadkii imika soo fahmayo oo sida madaxweynaheena Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku dhawaaqay in beeraha xoog la saaro maanta dhagaha dadkana waxa ku badan sidii wax loo beeran lahaa wasiirkeena beeraha Axmed Muumiseed isaguna talaabooyin horumar leh ayuu ka qaaday arintaas hadii aynu ku soo noqono markaas dalagyadeenan inta badan cilmi jaamac marka laga hadlayo inta badan waxa laga beertaa xagga galbeedka ayaa laga beertaa yuluq noocan la yiraahdo yuluq la yiraahdo masagacad iyo masagacas waxa laga beertaa xagga bariga laga beertaa waxaana ay yihiin kuwa badana u adkaysta dhamaantood kuwaanu haysanaa abaarta waxa markaas ay sameeyaan beeraleydeenu in ay sidaa daraadeed ay iyagu ay aad u ilaashadaan firigaas cimilada markaa uu ku baxaana waxa weeye cimilada dalkeena ku haboon oo ah markaas abaarta u badan markaas wuxuu ku soo baxaa 4 bilood noocyadan marka laga beerto bariga uu kamid yahay masagacas iyo masagacad iyo yuluq ay kamid yihiin cilmi jaamacna wuxuu ku baxaa 6 bilood ayuu ku baxaa markaas adigu siyaabahaas ay u beertaan laakiin marka galeyda laga hadlayo xagga bariga lagama beerto waxa laga beertaa xagga galbeedka ayaa laga beertaa markaas siyaasaha ayaa loo beeraa marka khudaarta laga hadlayana khudaartu waxa weeyaan meelaha biyaha leh ayay iyaduna laga beeraa sidoo la wada socono waxay u baahan tahay biyo ayay u baahan tahay markaas meelaha laga beerto sidaan soo sheegnay 100% ama 95 waxaan oran karnaa dibadda laga yimaada abuurkaas khudaaraha kala duwan ama fruits and vegetables-ka waxa laga yimaadaa dibadaha laga yimaada marka nasiib ahaan bay eegaan ama mid u fiicnaato ama yaana u fiicnaan nasiib ahaan bay eegaan in ma garanaysaa waxa uga soo baxa oo problem jira sidee loo ilaalin karaa siirka imsa sano ayaa lagu ilaalin karaa meesha ku jiro siirku wuu kala duwan yahay waxa kale saameyn ku yeelan karaa waxa lagu kaydinayo bohol baa lagu kaydinayaa mataangi baa lagu kaydinayaa jawaan baa lagu kaydinayaa waxyaabaha lagu kaydinayo ayaa markaas ku xiran tahay 3 sano 5 sano ayaa marka qaar siirku uu joogi karaa iyadoo loo eegayo markaas waxyaabaha ku haboon waxyaabaha ay markaa u adeegsadeen beeraleydu ay ku kaydiyeen sidaas markaa loo kaydiyaa laakiin nasiib wanaag abaarihii dhacay ayaa waxay sababeen inaan siirkii cidina kaydsanin oo siirkii la dhigtay ama gadbadii la dhigtay duba loo cunayo beeraleydii way cuntay siirkii ka bacdi dabadna meeshu ka baxay markaas talaabooyin ayaa jira ay wasaaradda beeruhu qaaday ay wasaaradda horumarinta beeruhu ay qaaday oo la doonayo in arrinta lagaga hortago talaabooyinkaas wasaaraddu waxay samaysay mashruuc la yiraahdo Somerset ay imka ka dhex socda wasaaraddu ay wadaa mashruucaas oo markaa laga hirgelinayo gobolada Maroodi Jeex Awdal Gabiley Daad Mareed meelahaas ka socdo markaa abuurkii free rasmiga ahaa ee dalka oo waxyaabaha arabaqadii haruurkii iyo digirtii ayaa markaa la soo qaadaya ka bacdi dabeedna marka la soo qaado ayaa la keenaya wasaaraddu ay markaas keenaysa ka bacdi dabeedna sidaas markaa siirkii loo sameynaya markaa inay hadana stepka labaad talaabada labaad ee qaadaysana ay xarunta research-ka ee abuurin ayaa markaa lagu beeraya xaruntaas marka lagu beero oo sida qorshuhu yahay badin baa lagu sameynaya wala badinaya marka la badiyo ka bacdi waa la kaydinaya marka national seed storage-kiisi loo helo marka la kaydiyo ka bacdi dabeedna beeraleydii baa markaa loo qaybinaya siirkii oo la hubo oo la tijaabiyay ayaa loo sameynaya talaabada kale muhiimka ah ee wasaaraddu qaaday waxa weeye lab bay samaysay markii ay lab samaysay labkaas waxa lagu tijaabinayaa abuurkii rasmiga ahaa ayaa lagu tijaabinayaa laguna ogaanayaa abuurka rasmiga marka ugu horeysa
abuurkii ma yahay abuur ku habboon dalkeena sidoo kale waxa la eegayaa ma yahay mid heerka badqabkiisa la eegayaa waxa la eegayaa heerka biqlidiisa ama heerka soo bixitaankiisa uu ku soo baxayo ayaa la eegayaa marka waxyaabaha la eego ayaa ka bacdi sida lagu beeraleyda loogu qaybinayaa wasaaraddu marka talaabada kale ay qaaday waxa weeye wasiirka wasaaradda beeraha Axmed Muumiseed waxa uu soo saaray wuxuu soo saaray war-saxaafadeed ayuu soo saaray war-saxaafadeedkaas oo markaas ku socday dadkan ka ganacsada abuurka ka ganacsada ayaa markaa uu diray sida markaa kambaniyada sidoo kale wuxuu u diray hay'adaha qaramada midoobay wuxuu u diray hay'adaha caalamiga ah wuxuu u diray dadka shakhsiyaadka ah ee markaa ka ganacsada abuurka oo markaa uu leeyahay aan kaga dalbanayno ka wasaarad ahaan in aanu helno ay wasaaradda soo mariyaan lagu baadho markaa tayadiisa la ogaadana markaasun la bixin karayo taasina waxay u noqonaysaa xal fiican dadkii beeraleyda ahaa in ay markaa siirkan ganacsiga ku imanaya ama abuurkan ganacsiga ku imanaya in markaas la sameeyo ay markaa iyadoo laga soo tishaabiya uu tago halkii markii hore ay iska beeri jireen waxa weeye wasaaradda horumarinta beeruhu waxay markaa qorshaha ugu jira sidii ay u sameyn lahayd national seed storage ay u sameyn lahayd xarun qaran oo markaa lagu keediyo abuurka fiican ee tayada leh ayaa markaa qorshaha ugu jira marka seedka la badiyana halkaas lagu keedin doonaa markaas waxa la soo celin doonaa seed storage-ki ayaa la soo celin doonaa ama xaruntii lagu keedin jiray seedka ayaa la soo celinaya gabagabadii leedahay dadka ku daawanaya ee beeraleyda ah iyo kuwa magaalooyinka ku nool u baahan wax soo saar ama maxaad kula talin lahayd sidaa wax u beerto sidaa sameeyo waxaan kula talin lahaa gabagabadii waxaan kula talin lahaa dadka Somaliland guud ahaan gaar ahaan beeraleyda dhul aynu haysanaano waxa weeye dhul tayadiisu ciidiisu fiican tahay oo ku habboon markaa wax soo saarkii ku habboon in markaa dhulka tayada leh ee fiican in laga faa'iideysto oo lagaga faa'iideysto wax soo saar isla markaasina qof kastaana uu ku dadaalo isagu shakhsiyan ama ka qoys ahaan family-giisa inta qof uu yahay inuu ku filaado isagu cuntadeeda daawadayaal dhanka kale iyo waliba barnaamijkeena beeraha iyo toddobaadkana waxaynu ku soo qaadan doonaa Professor Axmed Ismaaciil oo ka tirsan bahda wasaaradda horumarinta beeraha Jamhuuriyadda Somaliland waxaan moodaa inaynu u soo jeesanay oo aragtayna beeraha ka qabnay si isku dhan aynu maartay u fahamno halkii awal aynu beer ka eegaynay inuu si guud u eegi karno oo markaa waxaan uga jeedaa masalan waxaynu ka hadalnaa imaka baryahan dambe sidii aynu cunto ku filan dadka loo heli lahaa ama food security laakiin xaqiiqadu waxay tahay weli aad baynu uga fognahay inaynu helno cunto inagu filan waddankeena markaynu eegno waxaa laga wada warqabaa in cuntada aynu cunno badankeedu uu dibadda ka yimaado waxaa lagu qiyaasaa ilaa 10% ilaa 15 cuntada midhaha ahee aynu muxuu ahaay aynu quudanno in beeraheena ay ka soo baxaan inta kale laakiinse aynu dibadda ka keenno marka haddaba ilaa heer dabcan waxay aad ugu xidhnaanaysaa wax soo saarkeenaasi marka haddaba haddaynu eegno bal waayaha ku xeeran wax soo saarkeenaasi waxaad arkaysaa dhan ididila leh oo dhan ididila laho ididila ku gelinaya dhinac markaa ididila kaa galaysa dhinaca kale haddaad eegtana yaa waa niyad jab baa arkaysaa waxa weeye dhanka aad niyad jabka ku arkaysa waxa weeye dadkeennii beeraleyda ahaa markaad eegto yani berigii hore iyo markaad isku eegto imaka dadkii beeraleyda ahaa gaar ahaan waxaan ujeedaa dadka raashinka la cunayo soo saara sida muxuu ahaay haruurkii galeydii iyo moogtay
dadkaa soo saaray beeraleydaasi ee roobka agti wax ku beeraa berigii hore beeraleydu runtii waxay ahayn dad ay ka go-an tahay inay wax soo saaraan oo ku hawlan oo aaminsan beerta yaa oo ku imaan qaba imaka waxaad moodaa laakiin in yar oo ma aan islaa malaha 10% meelahaas 10% mooyaane ama 20% mooyaane 80% kale yaa runtii waxay aad bay uga hoos mareen beeraleydu sida ahaan jirtay bay uga hoos mareen oo waxaad moodaa in muxuu ahaa mashaakil yani farsamo dhankii wax soo saarka ah ka soko waxaad moodaa qaar xataa ijtimaaci inay haystaan haddii loo sii fiirsado dabcan waa laga yaabaa waayaha iyo nolosha isbedeshay iyo dabcan inay saameyn ku yeelatay sidii masalan loo shaqaynayay loo wada shaqaynayay muxuu ahay wax loo soo saariyey markii hore waxaad moodaa inay wax iska bedelayaan waxaan uga jeedaa masalan imika waxay nagu soo badanayaa generationadan dambe imika wax soo saarka beeraha ka shaqeeya waxay u bateen ba inay runtii aaminsaneen beertiiba oo inay wax ka soo saaraanba maba aaminsanaa marka waxaad moodaa inay yani si isarkaan un si accidental ah iyagoo si accidentally un bay isku arkaan beertii iyagoo jooga marka yani beer qodashadan iyo hawsheedani ma aha wax uu qofkii aaminsan yahayba maaha marka waxay u badan yahay waa la wada ogyahay imaka horta horaa la tegaya makhaayadda marka sida jaadka waktigaa la bilaabo ayaa laga yaaba in ilaa habeenkii yaa in laga yimaado markaa dabcan way jirtaa mar walba oo waxaa jira beeraleyda waxaanaynu idhaahna maogtahay saboolnimada saboolnimad badan baa jirta miyiga oo dabcan saboolnimadu way saameysaa dadka oo psychological way saameynaysaa ya wuxuu ku xisaabtamaya mar walba waxaan uu gelinayay tamarta uu gelinayay iyo wuxuu ka soo saarayay iyo waxaasa laga yaaba inuu eego qaarkood laakiinse dabcan kuwa kale bulshada aan leeyahay xagga bulshada ah dabcan waxa way saameyn iyagii baa saameyn isku yeelanaya dhexdoodii ya waa halkii awal iska maogtahay iska dhiirigelin jireen ee ay wada shaqaynayeen ayaad moodaa imaka inay iyagii muxuu ahaye dhan kale u jeesteen oo dhankii wax soo saarkiiba aan ahayn markaan dhankaa ka eegna runtii waxaad dee is odhanaysaa kolley sidaynu u gaadhno markaa sidaynu usoo saarno cunto in ugu filan way aad bay u durugsan tahay odhanaysaa durugsan tahay marka laakiin dhankii kale markaad ka eegta haddaba dhankii kale ummad ahaan markaad eegta haddaba waxaad moodaa inaynu aada u dareenay inaynu u baahannahay in wax la soo baxno ya inaynaan ku tiirsanaan karin un moogtay ummad ahaan waxaanu soo dareemaynaa inaynu as a nation ummad ahaan moogtahay waxaan soo dareemaynaa inaanay sidan ahayn sidii nation dhaqaysay aanay ahayn marka markaad eegto hay-adaheeni hataa hay-addii imika wasaaradda beeraha oo kale markaad eegto oo dabcan iyadu u xilsaaran hawlahani waxaad moodaa imika aad inay aragtideeda iyo attitudekeeda iyo sida ay maaragtay imaka uga go-on tahay runtii wax la qabto oo dhiirigeliyo wax soo saarkii iyo aad bay u muuqataa runtii oo dadaal badan baa jira hay-adihii qudhoodii laftoodii waayo marka la isku daro maogtahay maxay tamartan hay-adahan kuwan dawliga ah ama publica ah dawladda ah iyo kuwan kale hay-adahan kale marka la isku daro tamartooda marka la isku daro oo la iskaashado oo dhinac loo wajeysto waxaa laga yaaba markaa in wax laga tari karo marka wax soo saarkii dhan kale waxaan ku daraya inta wax weeye diilada aan ka hadlayaa waxay ka soo jeedaa markaan leeyahay dadkii baa doonayaa dadka waxay garanayaan waxaad moodaa inaan soo elbaxayno in fahmayno inaan wax dhulka kala soo baxno marka berigii hore waxaa jiraysatay dadka intaa saboolka ee dhulka beeraha hadda joogta miyiga ayuunba wax soo saarka ku ekaa moogta
laakiin imika waxaad moodaa dadkii reer magaalka laftiisii ama dibad haga yimaado shishe ama magaalada horeba ha usii joogay waxaad moodaa imika in la fahmay in la maal gashado beerihii oo wax la soo saaro moogtay marka imika waxaad ku arkaysaa hataa waxyaabo badan hore inuu soo saari jirin ee loo soo saaray imika midka kale aadka u muhiimka waxa weeye waxaynu soo fahmaynaa oo waqti badan inagu qaatay inay lagama marmaan tahay in roobka inoo da-aya aan la isku hadlayn karin wax soo saarka wax soo saar ahaan inaan ama haruur ahaado ama geley ahaado inaan la isku hadlayn karin inkasta oo dabcan nimcada ilaahay hadda inta badan daay nooga baxaysa haddana laakiinse waxaa lagu qiyaasaa badanaa ilaa 5 sanadood masalan in 3 sanadood ay si fiican wax u bixi karaan labada sanadood kale haaf masalan marka ayagana haruurka kale sanadka in caleen laga helo sanadka kale marka ay bacdo beerti waa markii hore qiyaastii moogtay muxuu ahaa cilmi baaristii lagu sameeyey laakiin imika waxaad moodaa in hawada xataa cimiladu isbedelayso dhulka soo kulaanayo abaarihii nagu soo badanayaan marka waxaynu u baahanahay ummad ahaan moogtay in dadaalku intii hore uu ka bato marka dhanka ididiladan ka arkayna waxa weeye waa dhanka imika la soo fahmayo ilaa biyo qabsado oo biyo dheeraada la helo ya ama ceel la soo saaro ama bale laga qoto in biyaha ordaya in la qabto in laga maarmaan tahay imika mushkiladda ugu weyn waxa weeye dhalinyarada imika generation dambe dad waxaan aynu soo saarno cunayo u jeedaa ma aha marka halkaa qudheeda in dib la isku noqdo baahan yahay bal waxay aynu soo saarinay iyo wixii aynu cunaynay iswaafajiyada intaasi daawadayaal waxaynu ku saafmeeraynaa barnaamijkaasi aynu kaga hadlaynay sida aynu wax u soo saaran lahayn isla mar ahaantaana aynu ula soo bixi lahayn iyo weliba seerarka kala duwan amaba shinida kala duwan ee aynu u baahannahay inaynu ku beerno dalkeena oo aanu ka wareysanay khubaro iyagu takhasus u leh barnaamijkan dhanka kamarada waxay noo qaabilsanaa Mustafa Maxamed Nuur Dheereye dhanka habaynta iyo isku dubaridkuna waa Axmed Cumar Cadaani anigu Jamaal Axmed Naasir barnaamijka halkan idin kala socodsiinayay barnaamijkan mid lamida inta iskugu iman doono saragti maqal dambe koor assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh